Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelkeena iftiinshe maanta waxaan idiin sharaxi doonaa filim drama ah oo gaaban laguna magacaabo The Carmel Line daawasho wacan aktarka filimku waa gabadh meeldhaxaada oo lagu magacaabo Sarah waxa ay la nooshahay gabadheeda oo lagu magacaabo Carly iyo ninkeeda oo lagu yeedho Dave maalin maalmaha ka mid ah Sarah iyadoo ku jirta jawi degan dhageysanaysa hees jacayl ah iyada oo ku dhex ciyaaraysa gurigeeda isla markaana waxay iskuulka ka soo noqonaysaa gabadheedii taasoon jawi degan ku jirin kabaheedii oo halaysan ayay iska saaraysaa isla markaana dhinacayay u tuuraysaa iyadoo bila taxadir ah hooyadeeda ayaa isku dayaysa inay ka qosliso iyadoo ku dheelaysa hareeraheeda oo heesaysa balse Carly qalad ayay u arkaysaa waana ka diiqadoonaysa Sarah waxay ka dabagelaysaa kijada iyadoo weli ciyaaraysa halka ay Carly codkii raadiyoga hoos u dhigayso iyada oo blade cashi ku jirto ka soo qaadanaysa miiska waana iska cadday in Carly aanay u jeedin dadaalka hooyadeed doonayso inay ku farxad geliso si kastaba ha ahaatee Sarah ma dhibsanayso iskandhatirka inanteeda waxaana dib u dalacaysaa codkii raadiyoga iyada oo fiirinaysa shantadii Carly si ay u hubiso cuntadii ay qaadatay inay cuntay Sarah waxay ka helaysaa boorsada inanteeda warqad imtixaan oo gradekeedu hooseeyo inkasta oo aanu hayn imtixaan rasmi ah haddana waxay kula doodaysaa inanteeda inay dadaal samayso halka ay Carly mar labaad iska indhatirayso hooyadeed taasoo u dabeecad noqotay marka ay guriga joogto marka ay hooyadeed ka codsato inay u jawaabtana waxay iskaga dhaqaaqaysaa qolkeeda wax yar kadib waxay Sarah ka soo qaadanaysaa miis yaala qolka fadhiga cabitaan balse gacanteeda ayuu ka siibanaya khalkhal baana ku imanaya iyadoo qaylinaysa oo dalbanaysa caawimo lugaheeduna ay dhulka sare uga soo kacayaan Carly ayaa maqlaysa qaylada hooyadeed si degdeg ah ayaanay qolkeeda uga soo degaysa iyadoo arkaysa hooyadeed oo heehaabaysa iyada oo Carly codka soo tuuri kari waayaysa muuqaalka xiga waxaa layna tusayaa 3 nin oo isku dayaya Sarah inay dhulka ku soo celiyaan mid ka midina waa ninkeedii Dave oo si dabacsanaya gacanteeda u haya halka labada nin kalena si xooga ay gacanta hoos ugu jiidayaan waxay isku dayayaan inta karaankooda balse wax madhadhala ma yeelanayso waxaabad moodaa inay ka hormarayso awood khayru caadi ah oo iyada kor u sii jiidaysa si kasta iskugu dayaan halkeeda kama soo dhaqaajinayaan Carly ayaa iyaduna albaabka ka soo fiirinaysa iyadoo fahmi la sida wax u socdaan labadii nin waqti yar ka bacdi way iska tagayaan iyadoo Sahri hawadii heehaabaysa inta kadib Dave wuxuu wacayaa dhakhtarkii family-ga oo lagu magacaabo Berger si uu u fiiriyo xaaladdan dhakhtarku wuxuu cabirayaa inta ay dhulka ka kacday waxaanu ogaanayaa marba mar ka dambaysa inay sare u sii kacayso intan waxay war weyn ku abuuraysaa qoyska oo xataa dhakhtarkii wax jawaaba aanu hayn sida arrinkan suuragal ku yahay kaliya wuxuu ka qaadayaa sample dhiiga si uu soo baaro isaga oo ku rajo weyn inuu helo waxa cufjidkeedii meesha ka saaray sidoo kale wuxuu u ballan qaadayaa inuu soo diri doono digtoorada lagu magacaabo Beenan iyada oo laga yaabo inay caawiso ninkeedii Dave-na wuxuu digtoorka weydiinayaa inta ay qaadanayso balse digtoorku wuxuu u sheegayaa inta ay Sahri ka caafimaadayso rajada kaliya ay leeyihiin waa inay waqti kasta caafimaadi karto maalinta laga bilaabana Sarah ma nuuxsan karin oo hawada ayay heehaabaysay ilaa ay maalintii dambe kor uga dheeraatay ninkeedii Dave wuxuu u soo iibinayaa Birdman ay ku xaajooto iyadoo rajadii ahaa inay caafimaado amba dhulka ku soo degtana mugdi sii gelayso maadaama aanay qolka dhannaba uga bixi karin inanteedii iyo ninkeedii waxay u qalabaynayaan qolka si ay u madadaaliyaan kadibna waxaa guriga imanaya 2 gabdhood oo Sahra walaaliyiin si ay uga caawiyaan caqabada nolosha iminka waa sidii qof sariiryaal oo kale waxaanay u baahantahay in la daryeelo maalin kasta way u nadiifinayaan aakhirkan waxay ku kalifaysaa inay salaan u koraan si ay u gaadhaan Dr. Berger si joogto ah ayuu soo booqanaya isagoo cabiraya inta ay sare u sii kacday isagoo oo diiwaan gelinaya ogaanayana in xawaaraha korukaceedu marba mar ka dambaysa sii badanayo si uu xakameeyana wuxuu adeegsanayaa suun uu ku xidhay waxyaabo culus si culayskaas u baajiyo heerka korukaceeda taasina waxba kama caawinayso Sahra taasoo gaadhay saqafka sare ee guriga Dave waxa ku bilaabmaya warwar hor leh marka uu arko inaanay wax natiijo ka soo bixin dhakhtarka habeenkiina Sahri waxa ku duuban buste iyadoo hawada sare heehaabaysa Dave oo aad u jecel marwadiisana markasta wuu la joogayaa wuxuuna ka soo guurayaa qolkii hurdada wuxuuna u soo guurayaa fadhiga si uu uga warhayo xaaskiisa dhakhtaradii kale ee Bernam ayaa toddobaad ka bacdi imanaysa waqtigaas oo Sahri madaxa la gaadhay saqafka guriga lana tacaalaysa inaanay kor u sii kicin taradii way isbaraysaa salaana ayay gacanta kor ugu taagaysaa digtooradu waxay ka cudur daaranaysaa maadaama ay ka soo daahday waxaanay weydiinaysaa siday ula soo qabsanayaan xaaladdan Dave ayaana kula kaftamaya inaanu saqaf ahayn meel xaas la dejiyo ay ka tahayba dhakhtarka uma muuqato mid la yaaban xaaladdan Sahra kaliya waxay soo qaadanaysaa cabir waxaanay cabiraysaa masaafada u dhaxaysa dhulka iyo Sahra Dave wuxuu u soo bandhigayaa digtoorka inay koob shaaha sii cabto waxaanu u dirayaa Carly inay u soo samayso
sahra la'aanteed jikadu waa mid isku dhex daadsan wasaqna ah. Sahri waxay ka soo saaraysaa sinxiga wax lagu meedho koob wasakha iyada oo dhaqdhaqaysa shaacina ku shubaysa kadibna u geynaysa doktorkii. Niyaddii dhakhtarkuna way isbedelaysaa marka ay xaqiiqsato in xaaladii Sahri aad u sii darnaanayso. Qoyskuna waxay uga fadhiyeen inay la timaado dawo mucjisa ah oo Sahri ku caafimaadto, laakiin waxay xaqiiqsanayaan inaanay iyaduna waxba ka garanayn xaaladdan. Doktoraduna waxay si cad ugu sheegaysaa in xaaladdoodani ay tahay mid naadir ah oo aan waxba laga qaban karin. Siday doktoradu darseenna ay kor u sii socon doonto heerar kala duwan. Dave si kurba ku jirta ayuu u weydiinayaa doktoradda bal inay hoos u soo dhigi karto Sahra. Doktoraddina way ka cudur daaranaysaa iyada oo odhanaysa waxba ma awoodo. Waxyaabo culus oo lagu xidhaa waxay hoos u dhigi karaan xawaaraha ay ku socoto, balse doktoraddu waxay sheegaysaa in dhaawac ay ku keeni karto Sahra. Sida kaliya ugu fiicanna waxay noqonaysaa xaaladdan in sideeda lagu eego oo laga dhursugo halka ay ku dhammaato. 10 way gudahoodna waxay Sahri samayn doontaa sare u kac ah 20,000 oo feet, halkaas oo ay u baahan doonto oxygen si ay u badbaado. Intaa ka bacdi Sahra sare ayay u sii kici doontaa iyada oo ay tahay in loogu dugsiiyo halka cuntadana loogu geeyo. Ugu dambeynna gabagabadu waxay noqonaysaa inaan Sahra la badbaadin karin. Qoyskeeduna waxay ogaanayaan inay sare u sii kici doonto ilaa dhimashadeedu ka timaado, halka ay Carrie xusayso in hooyadeed ugu amba bixi doonto safar meeraha orbit. Dave dulqaadka ayaa ka dhammaanaya, waxaanu dhakhtaradda weydiisanaya inay wuxuun samayso. Doktoraddina waxay u sheegaysaa waxa kaliya ay samayn kartaa inay tahay inay xaalad degan ku ilaaliso, balse dariiq lagu badbaadin karaa aanu jirin. Isla habeennimadiina Dave wuxuu daloolinayaa saqafka sare ee guriga si ay madaxa ugala baxdo Sahri, isaga oo si cadha ku jirto u jaraya dhaawacna u geysan gaaraya Sahra. Isla markaana dhaskii ruufka sare ayaa ku soo daadanaya Sahra. Sahri waxay u wacaysaa gabadheeda si ay caawimo u weydiisato, balse gabadheeda Carrie way iska dhagatiraysaa iyada oo furaysa qasabada biyaha si aanay u maqal hooyadeed. Ugu dambeynna Dave wuu dhammaynayaa jaritaankii waxaanu gacanta ka qabanaya xaaskiisa. Hadda Sahri waxay madaxa la soo gashay qolka Carrie. Gabadheeda Carrie-na si cad ayay u karhaysaa hooyadeed inay la soo daristo, balse wax ay samayn karto ayaan jirinba. Hadda Carrie wax ayay akhriyaysaa waxaana isku diyaarinaysaa imtixaankeedii. Hooyadeedna si aamusnaan ku jirto ayay u daawanaysaa. Sahra kaadi ayaa qabanaysa, balse way diidaysaa in gabadheeda ay qasto. Waxay kaadida haysataba. Ugu dambeyn gabadheeda ayay ka cudur daaranaysaa waxaanay weydiinaysaa inuu aabaheed ugu yeedho, halka ay Carrie hawl fududaysanayso beermaankana u soo qaadayso sidaana ku caawinayso hooyadeed. Intaa kadib Carrie waxay u noqonaysaa casharadeedii si ay u akhrisato, balse ma focus garayn karto waayo hooyadeed ayaa u jeeda. Kadibna Carrie waxay hooyadeed u sheegaysaa inaanay sanadkan imtixaanka geli karin sababtoo ah xaaladdan jirta, halka ay hooyadeed si cadho leh ugu jawaabayso waayo ma rabto in dib u dhac ku yimaado nolosha inanteeda. Maalmo ka bacdi waa sanad guuradii arooska Sahra iyo Dave, waxaanay ku casuumayaan Sahra hablaha la dhashay si ay ugu labisaan. Isla markaana wuxuu Dave ammaan kala duldhacaya xaaskiisa isagoo quruxdeeda tilmaamaya. Xaaskiisa iyo gabadha la dhalatana qosol ayay jaanta wadhayaan sababtoo ah xaaladda adag ee Dave ammaanta la yimi. Lamaanahana si farxad ku jirto ayay ugu dabaaldegayaan, jacaylna wadaagaya. Maalin maalmaha ka mid ah markay Carrie iskuulka ka soo noqoto waxay maqlaysaa hooyadeed oo taahaysa, iyadoo ogaanaysa inuu Dave xadhig lugta ugu xidhay xaaskiisa kuna xidhay sagxadda hoose ee dhulka si uu uga joojiyo sare kaca ay samaynayso. Dave wuxuu fadhiyaa afaafka hore ee guriga isaga oo ka dheeraanaya inuu maqlo taaha iyo xanuunka xaaskiisa. Carrie waxay u cararaysaa jaranjarada sare ee aqalka iyada oo soo qaadaysa midi si ay xadhigga uga jarto. Muuqaalka soo socdana Sahri aqalka ayay kor uga dhex baxaysaa. Dave iyo Carrie waxay ku gaadhsiinayaan cuntada iyo wixii ay u baahan tahay hooyadood wiish iyagoo isticmaalaya. Dhab ahaantiina waa waqtiga ugu dambeeya ee si arki karaan iyada, waxayna u cabaynayaan cunto, biyo iyo oxygen si ay u isticmaasho safarkeeda ay ku tegayso cirka. Carrie waxay hooyadeed gacanta ka gelinaysaa mobil iyo baytari si ay u soo wacdo marka ay u baahato. Sidoo kale waxay siinaysaa hooyadeed music player ay u soo xushay heesihii ay jeclayd si ay u dhagaysato markay caajis dareento. Waxaana loo xidhayaa shandad kuwa dhabarka ah taasoo laga buuxiyey waxyaabo culus si ay u yarayso xawaaraha ay sare ugu sii kacayso. Marka ay gabadheedu gacanta ka geliso raashinka waxa uu Dave u daawanayaa si aamusnaan ku jirto. Intii aanay bixin Sahri ayuu markii ugu dambeysay ninkeedu si kalgacal leh laabta u sii gelinaya isagoo oo ogsoon inaanay dib u soo noqon doonin. Dhammaan qoyskooduna murugo iyo oohin ayay ku sii macasalaameeyeen. Maalinta ku xigtana waxa inoo muuqanaysa Sahra oo cirka u sii baxaysa, taas oo ay adag tahay inay inoo muuqato. Si ay waqtiga isku dhaafiso nafteedana u madadaaliso waxay ku ciyaaraysaa halxidhaayada ereyada isdhaafka ah, marka si kadisa dhibic biyo oo ka timi roob ay ugu dhacayso buuggeeda. Sidaada iskaga masaxdo waxa ku bilaabmaya dhibic roob
roob waxaana iska saaraysaa koofiyadii ay gashaneed iyadoo xidhanaysa koofiyadda ku taalla koorkeeda si ay isku diiriso. Maalmo kadibna Sahri waxay isticmaalaysaa diirad si ay ugu eegto dhulka, waxayna la soo baxaysaa kartoon buskul ah oo ay gabadheedu siisay, waxaana ogaanaysaa in buskulku ka sii dhammaanayo. Sahri waxay wacaysaa gabadheeda iyada oo weydiinaysa waxay karsanayso ee diyaarsanayso iyada la'aanteed, waxayna u sheegaysaa biinis la dallacay iyo furid inay isticmaasho. Aad ayay uga warwaraysaa gabadheeda. Sahri waxay u sheegaysaa gabadheeda in cunto si fiican loo kariyey ay isticmaasho, balse inanteeda Carly way iska dhagatiraysaa mana rabto hadalkeeda. Carly hal kelmad oo qura ayay ugu jawaabaysaa hooyadeed iyada oo culays ku hayo hadalka hooyadeed, ogsoonna in hooyadeed dhiman doonto maalmahan lagu jiro. Sahri waxay ka raali gelinaysaa kana cudur daadanaysaa inay qastay gabadheeda iyadoo u sheegaysa inay jeceshay una xiistay, balse gabadheedu way jaraysaa telefoonka intaan hooyadeed hadalkii dhammayn. Wicitaanka kadibna Sahra murug ayaa ku bilaabmaysa, waxaanay samaynaysaa inay music playerkeedii shidato si ay xaaladeeda u dejiso, balse si lama filaan ah ayuu music playerka uga dhacaya. Sahri muruga ayay bilaabaysaa waana qaylinaysaa. Qayladeedii waxaa ku soo yaacaya koox shimbiro ah kuwaas oo iyada soo wajahaya, isla markaana farxad ayay dareemaysaa iyada oo gacmaha u haadinaysa shimbiraha hareeraha ka yaacaya. Dave aad ayuu ugu xiisaya xaaskiisa, waxaanu bilaabayaa khamri si uu isku ilowsiiyo xanuunka. Habeen ayaa waxaa bilaabmaya roob weyn, inkastoo ay Sahri xidhan tahay dhar culus, haddana ma aha qaar ku filan inay diirimaadka u baahantay siiyaan. Hubaal Sahri waa u xiistay qoyskeedii, balse waxay ka qaban kartaa jirinba. Habeenkiina si ay u badbaado diirimaadna u hesho waxay isku soo ururinaysay jidhkeeda. Maalinta soo socotana cirka ayay u sii bixi doontaa, waxaanay u baahan doontaa maaskii oksijiinta si ay u badbaado. Waxa ay iska saaraysaa maaskii, waxaanay wacaysaa ninkeeda. Dave wuxuu u soo cararayaa telefoonka, waxaanu xaaskiisa weydiinayaa inay xaaladeedu fiicantay. Carly sidoo kale way soo cararaysaa iyadoo ka murugsan xaaladda hooyadeed. Sahri waxay u sheegaysaa gabadheeda xitaa hadday imtixaanka ku guuldaraysato inay jeclaan doonto kuna hanweynaan doonto gabadheeda. Dave wuxuu ku soo celcelinayaa weydiinayaan xaaskiisa inay oksijiinta dib u xidhato, balse way ka diidaysaa. Taa beddelkeedana waxay ka codsanaysaa inay dhan uga dhaqaaqaan daloolka ku yaala saqafka sare ee guriga, isla markiibana shandad ayaa ku soo dhexdhacaysa. Waxayna ogaanayaan labadooduba inay Sahri go'aansatay inaanay sii noolaan. Carly waxay ku dhacaysaa dhulka iyadoo ku dhegaysa shandadii hooyadeed, baryaysana in hooyadeed dib ugu soo laabato. Marka ay cadceeddu soo baxdo, Sahri si dhaqso ku jiro ayay cirka sare ugu sii kacaysaa iyada oo qoslaysana waxay ninkeeda u sheegaysaa inay jeceshahay. Telefoonkiina way soo tuuraysaa, waxaanu ku soo dhacayaa daloolkii sare ee ruufka. Carly iyo aabaheed laabta ayay isgelinayaan iyagoo ooyaya kana murugaysan dhimashada Sahra. Hadda muddo 7 yara ayaa laga joogaa geerida Sahra, waxaanay qoysku dib u dayactirayaan daloolkii sare ee aqalka iyada oo Carly diyaarinaysa shaax iyo quraac fiican si ay aabaheed iyo iyadu u wadaagaan. Dave wuxuu dareemayaa isbeddelka weyn ee ku yimi gabadhiisa intii xaaskiisu dhimatay, waxayna Carly culays saaraysaa kuna dadaalaysaa waxbarashadeeda. Muuqaalka filimkuna wuxuu soo gabagabaysmayaa Carly iyo aabaheed oo quraac wadaagaya. Fadlan daawade si aad u hesho muuqaallo kale oo xiiso leh.